farxiyo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo meeshaan gabar muxsinad ah oo walaashayn ah oo ku nool dalka Jarmalka oo ka qayb qaadatay dadka masaakiinta sidii ay ku heli lahaayeen dhar una raacisay ilmahaas yar boqol kun ay ka dhigtaan maalinta Iida ay ku iidaan walaashayn Asli Axmedey oo ka socotay hay'adda GSB waxaan leenahay mahad Ilaahay ka siiyo awlaadaada iyo maalkaada Ilaahay kugu barakeeyo deegaankan ay u dhalatay waa dadka Hirshabeelle waxay go'aansatay in dadkeeda iyo deegaankeeda wax la qaybsato oo mahad celinaynaa waan ugu duceynaynaa waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda reer Balcad reer Hirshabeelle amba reer gobolka Shabeellada Dhexe iyo mas'uuliyiinta dawladda Hirshabeelle iyo dawladda dhexe xubnaha ka ah ee deegaankan ku aftirsado inay fiiriyaan ku daysadaan xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji iyo gruubkiisa soo garab istaagaan daqiiqad walba iyo waqti walbana ay u fiiriyaan inay deegaankooda dib ugu soo laabtaan walaalkeen xildhibaan Bariisi oo hadda wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose oo nagala soo qayb galay xafladan asigana oo gacan ka geystay ugu mahad celihaynaa imaatinkiisa iyo ka soo qaybgalkiisa ugu mahad celihaynaa iyo inta uu gacan ka geystay waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer Balcad hal arrin ugu baaqo dad iyo deegaan isku tashi wax ku naqdaan waxaa jooga dad intaa ka badan oo agoon ah oo wax haysanin oo gacanta ay gaari weysay sanadkii hore intaa in ka yaraa ku bilownay sanadihii ka soo horreeyay oo aanan ka warhayn oo xildhibaan ka waday wuxuu igu maqaal oo ii sheegay inuu 4 qafood ka bilaabay maantana ay taagantaa 112 qafood waxaa codsi u diraynaa jaaliyadaha waxaa codsi u diraynaa ganacsatada waxaa codsi u diraynaa culimaa diinka waxaa codsi u diraynaa bulshada guudaan reer Balcad caalamka meel walba ay joogaan inay soo garab istaagaan iidan iideedana ilaahay oo na gaarsiino 1,000 ilaa 1,500 qafood inaa iid siino dhar iid la siiyo kii si muuqda u dhiiban ilaahay waa u jeedaa oo u jaasina kii si aan muuqan u dhiiban ilaahay waa u jaasina waa sadaqa jaariya waa sadaqa wanaagsan waa wax wanaagsan oo in la baxsho muhiimadeeda ay leedahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo aayaadkiisa noogu sheegay axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay agoon haddii la garab istaago amba waxa loo qabta faa'iidada ay leedahay waxaan rabaa inaan hadalka intaas ku soo koobo maadaama ay tahay maalin soonqaad waxaa laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu baryaynaa waqti walba dadkan masaakiinta ah ee yatiinta dadkii ka farxiyay inuu ilaahay ajir ka siiyo